السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين سلام ولكن شباب ما له قرب فيديو عن يركض إنه كذا حلو مقفها تدكو على اللي يحدثكو إسكاس هستا dadku badankii waxay rumaysan yihiin magafe inuu yahay nin dadka muhaajiriinta ah ama badaariibayaasha meel isaga xareysta ee lacag baad ah ka qaata hase yeeshee xaalku sidaasi ma ahan badankiina ma oga in magafe uu yahay muqallas laga gardaran yahay bal aan isku dayo in aan idin sharaxo sababta magafe uu ku noqday muqallas laga gardaran yahay qofka tahriibaha ah marka hore asiga ayaa iskiisa uga soo taga magaaladii uu ku dhashtay si xornimo leh cidna ciiday aysan ku qasbin magafe ma ahan shakhsi in uu dadka soo tahriibay guryahooda tagay ay qoorta ka soo qabtay ee waa nin lugihiisa lagu yimid okay sababaha dadkan lacagaha loogu haysto ma ahan lacagtu in ay tahay mid baad ah ma ahan lacagtu in magafe oo dadkan dusha ka saaray ma ahan lacag dheeri ah oo dadkaas aynaan in laga qaado aysan xaq u lahayn lacagtu waa xaq magafana xaq u leeyahay sababtu waxay tahay dadkan waxaa laga soo qaadaa wadamada kale ah sida Suudaan, Itoobiya, Kenya, Uganda laga soo kala qaadaa tusaale Itoobiya qofka joogo Itoobiya laga soo qaaday la soo marsiiyay saxaraha iyo xuduudaha Suudaan in la soo marsiiyay askarti wadankaas oo dhan in laga qariyay baawur shida lagu shubay intaasoo shaqaalana haysay xuduudka Suudaan ka soo riday Suudaan markii la keenay cunto iyo dhar iyo adduunyo in la siiyay maalmo lagu hayay sidaan la socono wadamada falalkaas laga sameeyay wadamo dawlad leh shirtoonkooda uu shaqeynayo shaqadaas in ay tahay mid aad riski u ah oo dadka ka shaqeynaya hadii la qabto mustaqbalkooda oo ay waayi doonaan ama xabsi ay ku dhiman doonaan noloshooda ama lacag badan loo ganaaxi doono marka shaqooyinka noocaas loo hayaa tusaale Suudaan oo kale wadan aad u weyn lagu hayaa dhar la siiyaa cunto la siiyaa qofkii balood leh baloodihiisa la siiyaa wax lacag inta lagu diinayo waa lagu wadaa saxaraha lagu geynaa waxa lagu saaraa cabdi bilayaal pro oo baacda ay ku dhigantahay lagu saaraa jaaqada iyo koofi iyo gloves iyo adduunyo lagu xiraa afar maalin iyo afar habeen saxarahaas lagu sii wadaa waxa lagu geynaa qoleel Liibiyaan oo iyagana cabdi bilayaal kala wataan oo saxaraha meel kala bar jiro marka lagu geeyo qolaas Liibiyaanka lagu geeyo iyagana cabdi bilayaal kale ku saarayaan way ku wadayaan adbilaasha waxa u saaran cunto waxa u saaran fooneeyaal waxay ka baqayaan askarta Suudaan iyo askarta Liibiya ka baqayaan habeen madow iyo maalin cad inta saxaraha soo buur oo cidla oo lama degaan ay ku sidaan baawur cusbay wataan waliga ku adeegayaan shidaala kaga baxayo adigay ku adeegayaan cuntada ku siinayaan naftada ku ilaalinayaan intaas wax lacag lagu weydiinayo maalinkii magafa lagu geeyo waxa laga rabaa safarkii ka soo bilowday Kenya ama Uganda ama Ethiopia ka soo bilowday baawurta tirada badneed dadkii ku wardiyeynay shidaalkii kumanaankii qof isku bedelay ilaa Suudaan markay ay maato cuntada lagu siinay guriga lagu hayay shaqaalihii ku wardiyeynay baawurka laga soo saaray Suudaan ee saxaraha Suudaan ku keenay cabdi bilayaashi Liibiyaankii magafa ku keenay meeshay kugu hayeen waxaas oo dhan marka isku dardaro service adiga lagu qabtay lacagteedii marka laga rabaa ninkii intuu Itoobiya ka soo waday dhar ku xiray shilin aan ku weydiin cunto ku siiyay Liibiya ku geeyay jeebkiisa ka geeyay de soo xaq uma lahan hadii lacagtii lagu adeegay laga rabay dhiibi weyso inuu ku jirdil iska dhaafay xataa inuu ku dilo soo xaq uma lahan waa qodob waxaan rabaa in ay la fahantiin ninkan magafa leeyahay ma aha nin dadka baad ka qaada ma aha nin dadka iska dhaca waa muqallas laga gardaran yahay magafe dadyo badana soo maro magafe lacagaha dadka uu ka rabo waa lacago service oo dadka naftooda ugu sameeyay min Ethiopia ama min Hargeysa ama min Jigjiga ilaa iyo meesha badda laga raacayo safar dheer waa riski waliba adiga riskigaaga waxa ka daran qolyaha Liibiyaanka ama Suudiyaaniyiska oo adiga ku adeegayo hadii la qabto noloshooda way u dhamaatay ama lacag fara badan lagu ganaaxa ama waa la dilaa ama xabsi ay galayaan Soomaan baawurtana waa la wareega dadka shaqooyinkaas adiga ku qabanayo lacagtii shaqooyinka ku qabteen hadii aad dhahdid marka aniga ma hay hadaa dhahdid de soo xaq uma lahan in adiga ku dilaan ama ay ku jir dilaan soo maahan okay problemka ugu weyn oo jira waxay tahay Soomaalida badana galbeedka Soomaaliya joogto way iska soo baxaan macnaha iyagu waxba haysanin lacag haysanin iska soo baxaan nin xuno Soomaali ama nin xuna wuxuu leeyahay inta
tahriib ma rabtaa haa ninkan aniga ku wadaaya ee dhahaan sidii yaa lagu wadaa sidii ama gafa loo geeyaa markii aniga waa ka xumahay waxaa jiro Soomaali iyo Ethiopianis qaar ay jiro dadka si qaldan wax ugu dhaadhiciyo ay jiro laakiin ninka la leeyahay ma gafayaasha Liibiya joogo iyo Suudaaniyaasha shaqada ee dadka tahriibayaasha u qabtaan waa shaqo ay xaq u leeyihiin lacagtooda in ay ku helaan cidii ka waayaan waxay xaq u leeyihiin in ay jir dilaan ama waxay doonaan ay ka sameystaan maxaa yeelay wadooyinka iyo riskiga ay u soo bareen dadkaas iyo howlaha ay ugu qabteen aaba ka weyn balacagta waa gartay dadka badanaa soo tahriibayo waa dad maankooda oo joogo aawaaneen wada qaangaar ah iyaga ayaa iskooda u garowsaday in ay soo tahriibaan cid ku qasabta ma lahan magafo guryahooda kama soo xoogin markii qofkii iskiisa maskaxdiisa keensado in guriga hooyadiisa uu ka tago oo saxarahaas dhulkaas oo jeexo dee wuxuu kala kulmo leeyahay Liibiya nidii sheegayna waa meel riski badan oo dawlad aan ka jirin oo nidaam aan ka jirin tiya haddana markii shaqo ay ku qabtaan lacagta ay ku sii bootidee dad noocaas walba ahaayeen waxay doonaan ku sameynayaan Soomahan markii muhiimadda waxay tahay in ay la fahantiin aan rabo magafada dad lacag baad kama qaado dadna ma xoogo service-ki intii adeeg uu kugu sameeyay kaliya ka raba hadaa siisanay safarka u horeeyo lagu daraa si nabadgeliye ah kuus ama bixina waliba asaan mas'uulka ah ilaa meesha doonta laga raacayo ku geena sidii adiguna iska soo dhaafina marnaba ma jecla magafe in dadka lacagaha uu ka qaatay in oo micnaha oo sii heesto marka laga reebo qoryo waxaa jiro qowlisate oo jidka dadka u gasho oo dadka ma taqaana dhax ka dhacdo haddana qolo kale ka sii gadato laakiin badanaa magafayaasha shaqadooda waa mid aniga idin sheegay marka wayna jiraan qaar xunxuna jiro oo dadka khaldo oo markii koo laga soo baxayo Ethiopia oo kale ama Kenya ku dhahayo wax lacag laga mar u soo bax laakiin qof walba Soomaali markuu soo tahriibayo uu og yahay hadda fiidiyoyaasha aan daawan maal lahaas xirada Liibiya kulligood guryahooda markii ka soo baxayeen tahriibi u socdeen lacag la iska rabo way ogaayeen way ugu tala galeen haddana jabkan iyaga mas'uulka ah qofka marka hore tayuusan isku soo bixin asigoona lacag haysanin hadduu soo lacag la'aan soo baxo magafo wixii oo kala kulmo asaagar darada iska leh ee magafo xaq u leeyahay wixiisa marka muhiimadda hadalkayga ku soo gabagabinayo waxay tahay magafaha in ka dhaadhacsan in uu yahay nin burcad ah dadka dhaco baad ka qaado ma ahan saas magafe waa muqallas laga gardaran yahay ee xaqiisii muqallasnimo la duudsiinayo qof dhan oo ku soo jilba murxay wuxuu leeyahay lacag ma haysto aniga ciidan ma haysato marka taas uu wacan magafe qofka inuu saxan u fali waayo oo jirtilo marka wassalaamu calaykum